jamhuuriyadda lagu magacaabo Maldives cabirka dhulkeedu waxa lagu qiyaasaa 298 kilomitir square. boqolkiiba boqol dhulka Maldives waxa ku wareegan biyo dhinac kasta ka xiga. Maldives wadanka la yiraahdo waxa uu ka kooban yahay 200 oo jasiiradood oo yaryar kuwaas oo dadka ku nool ay gaarayaan 427,756 oo qof. Maldives waxay ka mid tahay wadamada ku tallaabsaday horumar dhaqaale wuxuuna wadankaasi caan ku yahay dalxiiska waxaana dadka dunida soo jiita xeebaha aadka u quruxda badan ee dalkaas leeyahay iyo jawiga wanaagsan ee dalkaas. sanadii 2017 oo kaliya waxa dalxiis ahaan u tagay dalka Maldives dad gaaraya 1 milyan iyo bar sida shaacisay wasaaradda dalxiiska ee Maldives. waxaa jirta arrin wadanka Maldives uu kaga duwan yahay wadamada caalamka oo idil taasoo la yaab ku noqonaysa qof kasta oo aan horay xog uga hayn Maldives taasoo ah inay isku xiran tahay muwaadinimada iyo diinta. dastuurka dalka Maldives ayaa dhigaya qof aan ahayn muslim inaanu muwaadin Maldives ahaan karin. waxaase arrintaas ka xiiso badan in qof Soomaaliya uu sabab u ahaa in diinta islaamku ay gaarto dalka Maldives maantana ka mid ah wadamada horumaray diinta islaamkuna heerka aadka u sareeya ay ka joogto. warbixintan oo Al Jazeera ay ku daabacday boggeeda aljazeera.net warbixintan ayaa lagu sheegay in qarnigii 12aad mid ka mid ah jasiiradaha dalka Maldives uu tagay nin lagu magacaabi jiray Abu Barakat al-Berberi. dalka Maldives oo hadda wada muslim ah ayaa waagaas waxay haysteen diinta buddhistaha. qisada ay ku islaameen oo xiiso leh ayaa warbixintu waxa ay ka soo xigatay dhulmareenkii muslimka ahaa ee Ibn Battuta. Sheekh Abu Barakat al-Berberi ayaa markii uu tagay jasiiradaas waxa uu si lama filaan ula kulmay dad ku xoonsan ku wareegsan haweeney da' oo baroonaysay tacsina dhiganaysay. kadib markii uu warsaday sababta ay u ooyeyso ayaa loo sheegay in bil kasta uu jasiiradaasi yimaado cirfiid lagu magacaabo shaydaanka badda kaas oo meel loogu xiro gabar ka mid ah gabdhaha tuulada oo qorituur lagu soo xiro. haweeneyda ayaa al-Berberi u sheegtay in hal gabar ay u joogto iyadina caawa ay tahay in loo xiro shaydaanka maadaama uu qorituurku ku dhacay gabadheeda. sidii caadada ahayd subaxii ayaa ehelada gabadha cirfiidka loo xiray waxa ay ka doonan jireen meydkeeda goobtaas oo ah goob aysan ama yaaleen balse waxaa lama filaan ku noqotay markii booskii gabadhooda ay ku arkeen Sheekh al-Berberi oo quraan akhrinaya sidaasna ku badbaadiyay gabadhii. waxay markiiba u ordeen boqorkoodii oo la yaabay arrinta dhacday markii looga sheekeeyay balse wuxuu ka codsaday Sheekh al-Berberi inuu bil kale la joogo oo haddii uu mar kale cirfiidka ka badbaado uu boqorku diinta islaamka qaadan doono. bil kadib sidii ayaa dhacday boqorkiina waa islaamay iyo inta badan dadkii ku noolaa jasiiradaas waxaana laga hirgeliyay jasiiradaha Maldives masaajidyo iyo xarumo lagu barto diinta islaamka. badmareenkii Ibn Battuta waxa uu sheegay Abu Barakat al-Berberi inuu ka soo jeedo dalalka galbeedka Carabta. haddana warbixinta Al Jazeera ayaa ku tilmaamtay Ibn Battuta inuu xaqiiqda baalmaray uuna ugu eexday dadka uu ka soo jeedo maadaama uu jasiiradaas qarnigii 14aad uu ka talinayay suldaan Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Cabdicasiis al-Muqdishaawi oo ka socday saldanadii Ajuuraanka ee ka talinaysay geeska Afrika waqtigaas. sidoo kale magaca sheekha diinta islaamka gaarsiiyay Maldives ayaa la sheegay inuu ka soo jeeday magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya waqtigaasna Soomaalidu ay ku abtirsan jireen deegaan sida Muqdishaawi iyo Berberaawi. warbixinta ayaa lagu sheegay in dhowr taariikhyahan ay isku raaceen in Soomaalidu ay diinta islaamka gaarsiiyeen wadanka Maldives waxayna markhaati u soo qaateen in la hayo cadeymo muujinaya in saldanadii Ajuuraanku qarnigaas ay ka talinaysay Maldives taasina cadeynayso in Soomaalidu ay gaarsiiyeen wadankaas ku yaala bariga Asia ee Maldives.
dad badan oo Soomaaliyeed ayay la yaab ku noqon kartaa in qof Soomaali ah uu sabab u ahaa in diinta Islaamka uu gaarsiiyo waddankan dhaca bariga Asia ee Maldives laakiin waxa se hubaal ah in taariikh badan iyo halyeeyo badan oo Soomaaliyeed ay ku lug lahaayeen meelo kale loo leexiyay warbixintan waxa tarjumay Maxamuud al-Bashiiri waxaana soo jeedinaya anigoo Cabdirasaaq Jubba